munaasabad kooban oo ay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa isbedel lagu sameeyay hoggaanka ururka qareenada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Odayn kadib waxaa gudoomiyaha guud ee ururka qareenada Koonfur Galbeed Soomaaliya loo doortay Cumar Macalin Cabdi, halka ku-xigeenkiisana loo doortay Cabdullaahi Maxamed Cabdi. iyagoona doorashada kadib goobta ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin xilka loo doortay, waxayna sheegeen inay si wanaagsan ula shaqayn doonaan dhammaan xubnaha ururka qareenada Koonfur Galbeed Soomaaliya ka kooban yahay una shaqayn doonaan bulshada Koonfur Galbeed. أنت أسكتي ما يبغى وين لها إلهي سبحانه وتعالى وهني كلبي بينها هني كلبي وين لا أنت أسكتي ما يبغى معناها محضها ذكي أو معناها مشرحين اللي كتبت ما يصير ذلك والإسمان يصير إذا ما هالسنجي ما يكلم هذا ليه ذكي إن قضي ذكي إن قضي أنت أسلم معناها ما هالنجاة إن شاء الله تعالى وين أحسن يا أبغى شغال دوما لما أنت ما أنا وضع وبهذا بعض أسبوعي وبعض كرسور كذا كرسور أنت أصلاً ستوصل ولا شغلين دون هديلا إن شاء الله تعالى وكان مبادن لما أنتي إذا ما تنتين السلام ما يبالغ على اللي هو الخلاف عندي يعني أنا قدومي أجيب يوم لما أنتي هناك أقولكم ما يكن سيبالغ على أنا ما يعتبر وكيل مكايو مقدسه أم شوية الخاصة أقولكم dhammaan xiriirka qareenada federaalka inay si fayl u hoojiyo maadaama gudoomiyaha fadhiye Baydhabo ay xamar ina xiriirka si fayl u wanaajiyo xuquuqdii la haayeen qareenada Koonfur Galbeed inay hadhayo taas. dhanka kale qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay doorashada ayaa sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligan ay u baahan tahay qareeno u dooda shacabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed kuwaas oo aan aqoonin sharciga isla markaasna u baahan in la difaaco. adduunyada qorshe dhalinyaro oo maamul la dhisayo dhalinyaro isdooradaas ay argo hoy walni isugu dagaalka madumay ku codsaday sidii wado karaamada oo qaran dhalinyarada booska ay banaayo dhalinyarada hadda la doorhaday ihaan fala doon may ku codsaday sidii la siin doorhaday anay ogdan dhalinyaradu hadda qarnuhu roog wali abla oo badanta sabar malla qaraf badin ismu badin hatta la tabar yari sadii oo anna qolayga anta ku qabada oo konto jara ana hatta sadii oo baan hatta iska darmaday oo iska daray waan boqol jaraha جد صبر خبرنا ولا يدم اللي سينيب أنك تقرأ فلان سيلاهي جيل كهجامي ومته وقت ururka qareenada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la aasaasay sanadii 2017 bishii December waxaana fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo ee xarun ku meel gaar ah Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ururkan loogu fadhiyaa qareemida bulshada ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shukri Ismaaciil Axmed, RTN TV, Baydhabo.